بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحوي آمين محمد مرسل وحنا وسيردي هوري هوينكا هادنا xildhibaanna ahayd haddana ah gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed runtii aad iyo aad aan mataqaanaa maanta u faraxsanahay munaasabad loogu baahnaa ay ahayd shirka dib u heshiisiinta ah because waxaan ku jirnaa bishii cibaadada ku jirnaa bishii raxmadda ku jirnaa bishii la iscafinaa ayaan ku jirnaa runtii wasaaradda arrimaha gudaha barnaamij aad iyo aad loo baahan yahay ay soo sameysay waxay lagu soo beegtay mataqaanaa munaasabadii rasmiga ahayd because bisha Ramadaanka ah naartu mataqaanaa isha waa xiran tahay shaydaamadu waxay xiran yihiin jannada way noo furan tahay marka aad iyo aad u soo dhaweynaya waxaan jeclaan lahaa xoogaa yar fariin yar inaan diro oo ah hooyooyin Soomaaliyeed ayaan nahay waxaan murugo weyn aan ka qabnaa mataqaanaa isha wiilasha oo Liibiya iyo mataqaanaa Suudaan iyo meel walba ay taagan dhalinyaradeenii lagu garaacay magafiyaasha ay haystaan in lagu soo diro shirka dib u heshiisiinta ama wax laga qabto waxaan leeyahay Soomaaliya waa israacday Soomaaliya mataqaanaa isha way guuleysatay shirka dib u heshiisiinta wuxuu noqonayaa Ilaahay idinkiisii maadaama maanta dil fiican xamar ay ka socoto hubkii la ururinayo guriyada la isku celinayo la is wada masaamaxayo waxaan leeyahay mataqaanaa Soomaaliya horay ha soo wada raacdo haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mataqaanaa anoo waliba aan rabo mahad gaar ah inaan u celiyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo maama Batuursha Axmed Gaballe oo runtii ah maama qarar ah oo runtii ah maama mataqaanaa u soo istaagtay gabdhaha Soomaaliyeed si ay mataqaanaa dib u heshiisiinta ugu qayb gal lahaayeen si mataqaanaa koontooda u heli lahaayeen waad la socotaa aniga waxaan ka mid ahaa gabdhihii laga soo doortay Imbagaati Batuursha Axmed Gaballe 12 gabdhood waa la dhaafsin waayay boqolkii maantana boqolkii 25 ay maraysaa caalamku mataqaanaa dad badan ayaa waxay ku qaateen bilado oo waxba aan ka jirin caalamku waxaan ka codsaynaa bilad sharafta oo haween la siiyay tan ugu qurxoon oo ugu weyn inay arrimaha gudaha ay siiyaan caalamkuna uu siiyo billahi tawfiiq adoo ma santihiin